marka dadka nagana wax isku xiran oo israacsan malahan nin walba dhinaciisu isku qaluudayaayo qariyad iska dhigaya qabiilaan ahayn ee uu sheeganaya dal malahan deegaan malahan dad israacsan oo isku toosan malahan 24 saac la caayaa magacooda la bahdilaa waa lagu dhoofaa daraada naag ba ay timid anoo halka fadhiyo guriga hortiisa abaayo gurigaan raadinaya kiraayo ma aragtay abaayo ma arkin guri kiraa abaayo shay garoon baa la igu sheegayo midhibaanta xun baa degan baa la igu yiri kaasaan ku yiri midhibaan adiga kaama xuma kaamana liito ninkii jannada laga waayo ayaa xun aan dhahay ma garatay marka ninkan iska celin shantaada ninkan ka reebin sharciga amareebaa leeyahay ma garatay waxa hadda rajaynaynaa inaan isku duubano oo tafaraaruqa badan la iska reebo oo inta qabiila gabooyi anoo gabooyi waxa u maleyn jiray ay si noogu ceynayeen baabay qabiilkeena haday tahay in la isku wada xirnaado oo ilaa dal ilaa dibad la is aruursado oo la isku toosnaado waa jeclaan lahaa laakiin dadka naga tafaraaruq ku jira mid ka baxaya ma ahan dad hadda wacyi gelin ku soo toosayeen igulama eka ilaahay amarkiis kuma darinin laakiin waxaan rajaynayaa ilaahay baa u baryeynaa faatixada u mareynaa ilaahay in qulubtooda isku sifeeyo colaada ka dhex qaado cadawnimada ka dhex qaado reebel ka dhex qaado qabiiladan ay sheeganayaan ka madoobeeyaba gabigeedaba Allah ka madoobeeyay qabiilkan la sheeganayo familigeyga aniga waxay dhahaan baagari baana ogaadeen iyo ku dhaari mana sheeganay naag midhibaana ahaan ma garatay waxaan ku sheegay abuu adinka hadda hawsha waa bilowdeen si fiican aan u wadin ilaa Facebook waan arkaa aniga qoraalkayga ma fiicna laakiin wax walba oo qortaan waa aqrinaya ma garatay wax walbana waa la socdaa marka arinta adkeeya oo xoog u yeela oo rag iska dhiga intii waqooyi saad aragtaa dadka loogu gumaada madaxa looga jaraa haddii aan heli karo waqooyi dhan dab iyo baasiina ku shidilaa laakiin ma heli karo mana awoodo naf kaliya ah waana la dilayaa ma garatay laakiin sidii aan uga tashan lahayn falankeeda aan galno wadamada ay ku faanayaan hataa looga soo guuro meel banaan oo hayjada loo xaqan lahaa lacag inta la aruuriyo meel banaan oo hayjada ninkii ku yimaada markaas la hubeeyo hub ma ogi wax kale aan iskaga dhicin ragaas iyo wixii daadafo oo daba socda buu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh